How did I pay a price? dadweyne Soomaaliyeed oo gaaraya kumanaan ayaa maanta waxa ay magaalada London ka sameeyeen banaanbax aad u ballaaran oo ay kaga dhiidinayaan dhacdadii foosha xumayd ee ka dhacday wadanka South Africa dhacdadan oo ahayd wiil Soomaaliyeed muwaadin Soomaaliyeed oo dhagax lagu dilay sidoo kalena laba walaalo ah maalnimadii shalay ahayd ayagana torey lagu qalay dadweynaha Soomaaliyeed oo aad u caraysnaa ayaa waxa ay ka codsadeen dawladda South Africa in ay wax ka qabato tilaabana ka qaado dambiyada noocan oo kale ah oo muddadii la soo dhaafayba ku socday dadka Soomaaliyeed waxaan ka xunnahay maanta waxa meesha ka dhacay oo ay South Africa ku hayso dadka Soomaaliyeed oo walaalahood ah oo maalintay gumaysiga ku jireen u doodi jiray oo u doodaqa jiray oo xooggood iyo xoolahooda ku bixiyay gobonnimadooda inay maanta dadkeena qaraan waa nasiib darro weyn oo aan habeen geed loogu soo gamban saas darteed waxaan leenahay South Africa hababkan ugu lisnay noogama hanbayn wiilka Soomaaliyeed sida loo galna waa midaan aad uga xunnahay mana yeelayna mana u dul qaadan doono man bulshada Soomaaliyeed oo ku nool dalka South Africa inay iskaga baxaan ay wadankooda aadaan garaan wadanka waxa joogan dad badan oo asxaabaan nahay waxaan leeyahay iska aada wadankiina aamina wadankiina ka shaqaysta arsaaqada Ilaahay bixiye wadankeena uu hagaagay iskaga soo guura daase wixii dhacay dhaceen wixii dhintaa la yarxama markaa iskaga soo guura walaalo daase intaas baan ugu talahaan waxaan uga xunnahay wiilkii dhagaxa lagu dilay dadka Soomaaliyeed meel walba ay joogaan waa inay u midoobaan dhibaatada say dadkooda uga dulqaadi lahayn walaalaheena Soomaaliyeed South Africa ku nool oo la xasuuqayo waxaan jeclaan lahaa Soomaalida South Africa degan inay iskaga soo tagaan ee wadankooda ka soo laabtaan dhacdo Soomaalida lagu hayo Soomaalida waa iskooda mid aad baan uga xunay runtii laakiin anu waxaan kula talin lahaa in wadankii lagu noqdo Soomaaliya meel badan oo nabad ah jiray la tago aad runtii u dhaleecaynaya waxyaalahan ay South Africa ku sameeyeen waxaanan wax adduunka ka dhaca maaha ama wax sharciya waxaanu leenahay dadka Soomaaliyeed ee businesska ku haysta South Africa inay sida ugu dhaqsaha badan ka baxaan wadanka South Africa arintii xanuunka badnayd ee wiilka Soomaaliyeed dhagaxa lagu dilay ay u istaageen dadka halkan taagan waxayna naga codsadeen inaan u qaban qaabino mudaharaadkan ballaaran runtiina haddaan nahay jaaliyadda Soomaaliyeed ee ku nool wadanka UK aad iyo aad ayaan uga xunnahay wax ma iska dhacayo waxaan rajaynaynaa inaan u dirno wafdi xaqiiqo raadina oo ka socdo jaaliyadda oo halkan ka bixi doona insha Allah ka shakhsiyan ka Soomaalinimo ka dhalinyaro dhinac walba marka la eego waa dhibaato laga xumaado qof bini aadanimana marka loo eego diiniyan dhinac walba marka laga eego fal wuxuusnimo ahaa fal aan qof bini aadan inuu ku kaca habooneen baa dhacay dul qaadan kara maaha South Africa Soomaaliya markay Soomaaliya ahayd way caawisay waa la garab istaagay laakiin iyagu may garanin laakiin taariikhda qori doonta ummadda Soomaaliyeed 22 sano ayay waxay ku jirtay in la kala qaybiyo maanta ummaddu waa midowday waa isku mid hal qof wixii loo dhiban ayagoo dhan waa loo dhibay ummadda Soomaaliyeed waxaysan u adkaysan karin marnaba aysan aqbalaynin South Africa oo ilowday wixii aanu sameynay haddii ayaga la gumaystay ma waxay rabaan inay ummadeena gumaadaan yani dareenkan isku imaatinka Soomaalida wuxuu muujinayaa sida ay ugu xun yihiin waxa ka dhacaya South Africa waana dareen lagu farxo dhalinyarada Soomaaliyeed South Africa waxaan leeyahay dalkiina dib ugu noqdo South Africa ma rabto waa dad xun waa dad cawaana dad animals ka noqdo wadankiina u laabtaan macallin baan ahaa ardada South Africa free bay ku dhigan jireen iskuulaadkeena iyo jaamacadaheena university scholarship of free ah la siin jiray ya maanta they do like that our kids that is our reward that is you said the reward you said the reward for us you said the reward for us to kill like this our kids who are pregnant women innocent people the shopkeeper هذه عرفنا إن سوماليدا lagu dilo South Africa dad masaakiin ah oo innocent ah oo wax dhibaato aan geysanin in la dilo aad ayaa uga xunnaay I come from Uganda. My name is Ramla Ali. I've come to support my sisters and brothers from Somali, and this is so inhuman. It's not acceptable anywhere in the world. I've just come to give support. Thank you. safiirka South Africa oo fadhiya wadankan Ingiriiska oo ay saxaafadda Soomaaliyeed su'aalo weydiiyeen ayaa waxa uu tilmaamay in ay aad uga xun yihiin faralka arxan darrada ah ee loo geysanayo ummadda Soomaaliyeed waxaan ay tilmaameen in ay aad uga xun yihiin dhacdadana ay wax ka qaban doonaan There is no cause to justify this heinous crime. We are therefore hopeful that our law enforcement agencies will bring to justice those who incited and perpetrated these criminal acts.
banaanbaxan oo ahaa mid aad u ballaaran oo dadweynaha Soomaaliyeed ee ku nool wadankan Ingiriiska gaar ahaan magaalada London ay uga dhiidhiyeen dilalka arxandarrada ah ee maalin walba loogu geysto wadanka South Africa muwaadiniinta Soomaaliyeed ayaa waxa ay mar kale isku ballansadeen in maalinta berri iyo maalinta ku sii xigta ay ka hor sameeyaan xarunta ay South Africa ku leedahay wadankan Ingiriiska gaar ahaan bartamaha magaalada London على آر تلفزيون كقرنكا لندن